dadweynaha magaalada Ceerigaabo ayaa saaka ku waabaristay jawi ka duwan jawiyadii hore ee wax kala iibsiga iyo ganacsiga suuqyada magaalada Ceerigaabo waxaana saaka gebi ahaanba meesha ka baxday in ka badan 40 sanadood lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd ee wax lagu kala iibsan jiray magaalada Ceerigaabo waa markii koowaad ay si toos ah suuqyada Ceerigaabo uga dhaqan gasho lacagta shilinka Soomaaliland waa berigi saakaba waxa bulshadu ku waabaristeen dhawaaqyada codbaahiyayaal baabuurta ku rakiban kuwaas oo lagu baahinaya awaamiirta bedelka lacagta Soomaaliga isticmaalka laanta 48 saacadood kaliya kaga faa'iideysta fursadan iyo wixii looga gaaro maalinta Sabtida waa mamnuuc isticmaalka shilinka Soomaaligu safaf dhaadheer waxa loogu jiray goobaha bedelka lacagtu ka socotay gudaha magaalada Ceerigaabo gudoomiyaha banka Somaliland taliyaha qaybta booliska farasaabka gobolka Sanaag duqa degmada Ceerigaabo ayaa iyaguna kormeer ku marayay goobaha hawsha lacagta bedelku ay ka socoto gudoomiyaha banka Somaliland madaxda maamulka gobolka tan degmada iyo mas'uuliyiin kale oo xarunta banka kula hadlay warbaahinta ayaa shacbiga ku adkeeyay inay lacagtaasi iskaga safeeyaan 48 saacadood gudahood waxaanu ka bilownay gobolka Sanaag khaasatan magaalada madaxda Ceerigaabo inaanu ka bedelo giimbaartii ka soconaysay shilinkii Somaliland aanu gaarsiinay muddada aanu u qabanay dadka waxa weeye 48 saacadood baan ugu talagalay in magaalada Ceerigaabo in Somaliland wax lagu kala iibsanayo qofkii aan Somaliland wax ku iibsanaynin ama ku iibinaynin waxa weeye waa dambiile runtii maanta farxad weyn bay ii tahay waxay ila qiimo tahay maalintii 24 bishii May ee 2011 aanu burco ka bedelay lacagta giimbaarta bay maanta noola qiimo tahay waxaanu leenahay ummadana ka faa'iideysta muddo badan baynu sugaynay ma hadaynu ugu naqaynaa dawladdeena nin walba ka faa'iideyso waxaan ka dardaaraynaa in lacagtaas wax fowdaa la geliyo ama qasal la geliyo dhammaan ciidamada qaranka qaybaha kala duwan ay leeyihiin waxay saacada imika laga bilaabo amar buuxa ku haystaan cidii lacagta isku dayday inay qasto in talaabo adag laga qaado hay'adaha sharciga ayaa marna maxkamad baaran taagaya ganacsatada ayaa iyaguna dhankooda si weyn u soo dhaweeyay bedelka lacagta shilinka Soomaaliga waxaanu halkan ka cadeynaa hadaan nahay anagoo isku duuman oo dhan oo ah ganacsatada gobolka Sanaag oo aan qabiil iyo qolo iyo qoys iyo cid gaar ah oo kala saarnay dhamaantii baan mideysanahay dhamaan gobolka Sanaag magaalada madaxiisa Ceerigaabo inaanu bilownay inaanu qaadano shilinka Somaliland shilinka Soomaaliga aanu ka baydhno aad iyo aad aan ugu faraxsanahay qaadashadeeda dhamaan aanu isku wada raacsanahay ganacsatada gobolka Sanaag iyo dadweynihiisa muddo dheer bulshada reer Sanaag waxay la ildarnay dhibaatada lacagta shilinka Soomaaliga oo mar leeyba ay barbar socotay lacag la muuqaal ah oo been abuur ah taasoo bulshada badaynay si xirbarar joogta saaxiib la noqdaan dadka ugu badan ee taasina waxyeelada ku ahayd ayaa iyagu ahaa danyarta garab raratada bedelka lacagtan oo muddo badan la sugayayna waa mid saaka la socodsiiyay oo suurta galay Maxamed Yuusuf Bakayle Somsa TV Ceerigaabo.